waxaa tahay nin dhalinyaro ah laga soo bilaabay yaraantaada xilliga aad soo aqliyeysatay ilaa iyo maanta qofka aad tahay ma jirtaa maalin madow oo aad isleedahay maalintaas maalin madow ay ahayd oo maalmaha iga bedelaan waa maalinkii labadeeda waalid aan waa hooyaday Allah u naxariistiyo aabahayda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا عنا ونكسن إذا لهانتين سومالي محمد ملك استأذنكم كجوكتان هلك عنا قد دعونا سوا برتنا فيسبوك ولا بيوتيوب قدر الشريف. فضلا هذا مركو غوري ساعة وانا سبسكرايب نوصل آدي بدو ما هسنتهين. هذا الكمسي وذي كرو جيد بكوين ما أنت وحشرف إياه إن walaalkay uu ag fadhiyo waliba role modelkaygi inta anaga barnaamijka gudaha u galin marka hore waxaan rabaa inaan idin kala baxo asaga iyo idinka sidoo saaxiibkay صاحب معنا horta aad ku salaama saaxiibkay Qadar Shariif adiga asxaabtaada waa idin salaama meel boodurida aad ku joogtiinba waxaan idin leeyahay ciday galab u tahay galab wanaagsan ciday fiid u tahay fiid wanaagsan ciday subax u tahay subax wanaagsan janalkaadi aan dhax fadhiya aqyaartana waxaan leeyahay hadda meeshaad kulay ugu aragtaan wax badan ka soo socday soo dhawaada aad u mahadsan tahay horta marka koowaad sharaf iyo karaama ay tahay inaan agtaada fariisto because of Soomaalida ma tihid maanta social media lagu bartay aad u weyn nin waxa tahay in badan codkiisa ka horeeyay aad u weyn like maqalkaaga ba muuqaalkaaga ka horeeyay aad u weyn waliba aniga aan ahaa dadka dhageysan jiray oo taageeraha u ahaa marka inta laga soo tago waxaan maqalnaa in lagu dhaho Ciraaqi magacaaga oo saddexan ma noo sheegi kartaa magacaygu saddexan waa Ciraaq Cabdi Cilmi Ciraaq Cabdi Cilmi aad u weyn thank you so much you welcome Ciraaq shakhsi ahaan horta Ciraaq waa qofna like Ciraaq waa aragnaa oo hor fadhiya laakiin Ciraaq muxuu ahaa yaraantiisi ilaa iyo hadda والله هرتا عراق عبد علمي إيرانتيسي وحو إسكاها نين دلنيراها فوتبول كعادو عيارة كبتا عكتو إسكا عياري جري نين وحان إسكاها دلنيراها مركز الدحقلا أو سوشيالا أو شيكا بدن لكن عيال ورا في هيليدا اسكو مجريا واكبح سنة ما شاء الله اوكي عراقي مر لبادي مر صدحد واكاغا مهد علينا waxaad ahayd nin bulshada caan u ahaa markii codkiisa la dhageysto shakhsi walbana uu dhihi jiray waa qof hebel su'aasha ugu horeysay raba inaan ku weydiiyo goormay kugu dhalatay inaad filimada turjunta ama goormay kugu dhalatay in codkaaga uu ka hormaro wallahi horta aniga iguma aysan dhalanin ina horta filim aniga aan turjimo ama codkayga oo iga hormaro kaliya waxaan role model ahaan waa wax igu soo dhashay oo asxaabteedu ku dhashay oo markaas la yiri ninka Ciraaq Cabdi Cilmiya وأنا مركز محلي رهذا يطالنتي له بدلي كرو عمر إسماعي بوسكيسي بدلي كرو غور بوسكيسي ساسم كسوق له أو بدلهان هذه هذا ما صنته مجرى كل فيلم هذا هندي أنت أقول بدنا أنا كم خلي عدك ولا أكتر هذا مجرى أكتر هنديات أو ما أنت فايفرت كو أو سلاد هاي أكتر كاس لايك مركي لا أركو عدك على صح سنة واجرا ولا صديق هذا ألو أرجونو كله تصال أن رامجرانو كله مهش بابوه كله وأكتر بدن وجران هذا أنا أهان مركي أركو أكتر هندي أو أن عدك صح ستاجرو سي هذا رام جرام وكله يقولوا أرجون مركي أركو صح ستاج عدك ويجرتي أكتر كهريسي لكن أكتر هذا أصلي عدك وكسر عدك كواسن كسبها ها أكتر هذا كسبها أوكي سؤالنا كلا هدي أن جودها وقلنا برنامج كان هو برنامج كيس كقصوين كي جعلك صوبته ما أنت من أيضا كنت بدنا ونجعل دم كده حموقته موجية جعل صحن مجرو مركا سؤال شو وهره السو هدي أن كويديو عراقي هرت مثلا جعلك لو محكي عن سنت هذه والله وان آمن سنة هاي وواحد جر هرته وواحد كل لمي وواحد قف والبمركز كل رقم أود السوق يواه يعني أنا أهان شخصيتي دوا أنا من سنة جعلك بس رقم كالصومالي ذا أقانايو
inta badan waxaa aaminsanahay inay la dagaalaan jaceylka dhankiisa oo yidhaahdaan war waxaan jaceyl maahan yaqay xoogaa hawsheenna haraatida noo sii badi ama hore u sii gudub oo kale inay yidhaahdaan soomaalida inta badan waa aqaanaa aad iyo aad waxaa jiro hablo badan oo ku waayey raggii ay jeclaayeen waxyaabo midabta koor ah ama wax haybsooc ah iyo rag badan oo ku waayey gabdho ay jeclaayeen wax haybsooc ah adi ahaan maanta ma jiraa qof aad isdhihi lahayd ama heebsooc baa kaa reebay ama shakhsiyadda uga hartay ama jeebkaa kaa reebay aad isdhihi lahayd oo xasuusato ma jirtaa maya aniga ahaan maya balse asxaabteedoo kale waa ku arkay laakiin aniga shakhsi ahaanteyda igumaysa dhicin taas okay aad iyo aad aa umahadsantaa weli waxaan dhex soconaa qaybihii jacaylka ma jiraa jacayl adiga kusoo maray ood xasuusato oo maanta is leedahay taariikh buu kuu reebay ama ha madoobaato ama ha cadaato taariikhdaas wallaahi way jirtaa balse waxaan rabaa inaan ka gaabsado taas aad iyo aad aa umahadsantahay waxay su-aal skiip waa ka gaabsanaya laakiin way jirtaa aad iyo aad aa umahadsantahay waan ka gudbaynaa waxaa jiro su-aal iyaduna laysku tuurtuuray inta badanaa still waxaan ku dhex jirnaa waa ka jawaabaynaa su-aashaas badanaa hablahana waxay ku tuuraan dhanka ragga raggana waxay usoo celiyaan xagga hablaha waxay dhahaan qoyska inuu burburo ama jacayl socdo inuu burburo waxaa sabab ah hablaha inta badan waxay dhahaan ragga ragguna inta badan waxay dhahaan waxaa sabab ah hablaha adoo ahaan fikra caankii aad ka qabtaa in qoyska uu xaggiisa ka baabao ragga ama hablaha horta su-aashaas hadda ka horan TikTok live intaan ka galay aan waxaa iri maxaa sababay qoyskan burburaya inta badan ragna waxay ku leeyihiin raggaa sababa ragga qaarna waxay ku leeyihiin haweenkaa sababa laakiin xaqiiqatan waxaan hubaa oon aaminsanahay aniga alla ka cabsiga inuu yaraaday xaqiiqatan qoyskan markuu dhisan yahay oo gurigan hooyadii salaad ay tukanayso oo alla loogu xiran yahay caruurtii salaad ay tukanayaan gurigaas inuu burburo lagama yaabo laakiin lama eedi karo gabar lama eedi karo wiil midda xaqiiqda ahaa taasa okay aad iyo aad aa umahadsantahay fikirkaaga saliimka ah oo kaaga mahadcelinayna aad weyn su-aasha xigto haddii aan u gudubno ibni aadanka markuu dhaqaalaha yeesho waa isbedelaha ma dhaqaalaha bedelo ma shakhsi ahaan buu qofkan u ahaa mise waxaad leedahay isagaaba u baahnaa marka hore inuu lacag helo si wejiga ugu bedesho inta badan horta dadka qaarkood dhaqaalaha wuu bedelaha la dhihi karaa qaarkoodna awaleeba soo wadeenba hawshaas laakiin aniga waxaan aaminsanahay qofka bini'aadanka inuusan dhaqaale bedeli karin ka dabci ahaan maanta haddaan aniga 2,000 helo waxaan ku qasbanahay qadar shariif oo saaxiibkay ah inaan dhihi karo brotherkayga hawshaana jirtay bal seen wax u wada wadnaa ama haye bal intaana hayahay intaan ku kabo waa la isdhihi karaa waa caadi balse soomaalideenna inta badan ma yaqaanaan oo waxay aaminsan yihiin dhaqaalaha inuu wax bedelo laakiin dhaqaalaha wax ma bedelo saan aaminsanahay qofka xunbaa hasi awalka hore isbedeli rabay oo awalka usoo socdo u qorneyd xaqiiqatan waa aniga taaminsanahay su-aalaheynaan weli sii dhex socnaa waxaa jirto iyaduna su-aal shakhsiyaadka maanta dhalinyarada maanta joogta ay ku badan yihiin in ama ay isku dhiiriyaan ama ay isku waaniyaanba inta badan dalkeena Soomaaliya waa laga hayaamayaa oo dhalinyaradii kicitin baa ku jiro oo tahriib yani ama tahriib baa ku jiro ama in wadanka ka baxa baa ku weyn sax mislada qofka wadanka ka baxayo waxa uu geysay gaajo waxa uu geysay shaqo la'aan waxa uu geysay waxa uu geysay dalkii oo dhibaato ay ka jirto mise isaga marka hore qof safar iska ah horta midaas waan aaminsanahay dhalinyarada horta tahriibaysa inta badan waxaan aaminsanahay qadar oo kale markuu Mareykanka tago kale maanta oo Facebookiisa bartiisa post soo dhigo kale dad badan waxa iska jira hayraac markay arkaan kabihiisa ama shaatigiisa oo kale inay dhahaan waraa qadar goorma baxay war United States jooga goorme maxuu cunay maxuu xirtay lama dadka inta badan ma dhahaan kaliya waxay leeyihiin ninkaas sababtu ku baxa anagana waa inaan ku baxnaa laakiin muhiimadda waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa dalkan horta waa dal nimco dhex taala dawladana lama eedeyn karo anigu eedeyn hadday maanta imaan lahayd oo si toosan qof eedeynayo ganacsi baan eedeynaa ganacsatada hoos haddii maanta markab uu soo dego kale waxaa la sameynaa markabkii qof kale wuxuu leeyahay 100 qofood oo kale oo ilma adeeradiisa oo kale wuxuu siinaa ganacsi oo kale diyaarada imaanaysa diyaaradda waxaa la rabaa qofkii inuu aqoon u leeyahay oo kale ama hostas inuu noqon karo qof kale oo walaalkiis aan ahayn la geeyna oo family aan isku dhaweyn ana xaqiiqdan waxaan aaminsanahay
dalkan inuu shaqeeya ay taalo dowladda shaqo laga heli karo dalkan haddaad u beer adeegto wax walbo waad ka heli kartaa taasaan aaminsanahay inaad tahriibto oo dalkan aad ka baxdana dalkaada hooyo aad ka baxdana ani qaladaan u arkaa dhalinyarada Soomaaliya saasaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay weligaa ma kugu soo dhacday fikir ah inaad dalka ama ka tahriibta ama maalin waa iskaga hayaato meel aad uga baxdo maya okay waxaa joogtaa magaalada Muqdisho aad u weyn isleeyahay inta ugu badanaa ani ama ku maqlayay ama ku arkayay magaalada Muqdisho dhex joogta ma jirtaa qisas si gaar ah magaalada Muqdisho kaaga qabsatay oo maanta isleedahay waad ka waanin lahayd dadka Soomaaliyeed والله هرت قصوينكيga qadarow barnaamijka xigan kaaga sheekeyn doona qisooyinkii qisalkan lagu soo koobi karo horta ma ah maanta xooga kuleelaan lahaya dabcan waa dareemi kartaa waxaan ku hubaa qadar barnaamijyada aan igu dhacay in ay dhaxal yihiin waana kaaga taariikhin doona haduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad ma xasantahay anaga waa qaadan warkaaga waxa jiro shirkad fan project la dhaho oo aad ka ahayd like members ka shaqeeya ama markaas like ugu dhow in macnaha ay wax soo turjumaan ma jirtaa wali shirkadii ma shaqeysaa wali mise waa lagu kala tagay shirkado kale ay mideen wala qadar su'aal fiican shirkadii la hadda way joogtaa fan project way shaqeysaa asxaab badan ka shaqeysa laakiin aniga Allah u naxariistay aabintu sayga dhima ka hor jabniinkiisi ayaan shirkadii ka soo tagay ka hor shirkad kale asal leeyahay imid asal shay waa aan fiicweynay oo waxay tir macnaha aabaha haduu jaba anaga wax shaqo kuma lihin waa inaan marka hore noo shaqeysaa kadib aniga sidii aan saga dhaafo waalidka xaqiisa aan u batasaan u daryeelo alxamdulillah waana joogtaa duu ilaahay ilaahay u naxariisto anana waa u duceynaa in shaqo waalid lagu doortana aad nimada iyo diinta ma qabto aad weyn aad iyo aad u mahadsantahay go'aanka qurxan ay qaadatayna aniga kaliya ma aha Soomaaliya oo dhan way kaaga mahadcelinaysaa malaayiin jeer aad iyo aad u mahadsantahay inta hada barnaamijka sii dhigana waxaan rabaa hal mar inaan ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada la hadlo inta waalidiintooda ay u nooshahay waa iga dardaaran waalidkiin walaalayaal ku dadaala intaad adduunka joogtaan waalidiintu waa inaad ku dadaashaan si caruurtiin adikana idinku dagaasho ilaahay subxaanahu qaadirkaana ajir idinkaga siiyo adikana aad iyo aad baa u mahadsantahay xitaa anaga waa qaadanay waana diyaarsanaa aad iyo aad u mahadsantahay niyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tahay nin dhalinyaro ah laga soo biloway yaraantaada xilliga aad soo aqliyeysatay ilaa iyo maanta qofka aad tahay ma jirtaa maalin madow oo aad isleedahay maalintaas maalin madow ay ahayd oo maalmaha iga bedeleen waa maalinkii labadeeda waalid aan waa hooyaday Allah u naxariisto iyo aabahayba maalmo madow bay ahayd haddana waa meel loo wada socdo oon laga ahaaneyn sabr iyo iman Allah naga siiyo dhamaanteeda saaxiib waa u duceynaa anaga kaliya meesha ka anaga naga dhinteen ilaahay qabriga ha waasiyo amiin 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 gacanta midiga Allah ka siiyo waan ka xumahay inaan halka kula aado may waa qasab may waa qasab walaalkii waa qasab aad iyo aad u mahadsantahay waxa jirto dhalinyaro maanta social media-ha waqti dhow soo galay haddana ismooday inay yihiin dadka iska lahaa social media aad u weyn kulay waa looga soo horeeyay oo waqti badan baan jiray adi ahaan dhalinyaradaas maxaa isleedahay maxaa ka waanin lahayd maanta horta ani waa kaala tali lahaa aad iyo aad intaad iga dambayso dhalinyarada social media-ha ku cusub ee magaca hadda samaysay weliga ha hoostigi hana u baahan haddii aad caawin karto qadar shariif oo caawi oo dar ilaahay ku caawi laakiin waxba ha uga baahan maxaa yeelay waxayba ismoodaan magacaas yarka maanta adiga adaa u sameeyay fiiriya waad u dadaashay qaar badan oo hadda waxaa jira qadar oo aan xan igu soo gaartay oo adiga aad qabashadeeda lahayd xan ahaan haddana aadan sheeganin haddana ismoodayay in ay markaas adiga ka sareeyaan marka qadarow dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo baxaysa haddii aad wax u qaban karto walaalkay u qabo laakiin weligaaba ha u baahan kaliya kaamirada soo istaag tixsiga inta kaamiro markaa rabta iska dhidid adile wada hawshaada ma garatay waayo ayaga wax kale ismooda wax kale iska dhaadhicinayaan hadda Yacqoob oo kala jiro ma sha Allah waan la jiro macninkii galkana ka salaamaa JK oo kale waa la jan Fuaad oo kale waa la jan waa la wada joogaa la jamiinta aan diyaar ku ahaa ku dhex jiro oo dhex joogo waa wiigana barnaamijkeenu uu yahay waa la socotaa umarayna yaani dhalinyaradaas marka waxa la rabaa in qofkii hore oo ka horeeyay inuu ku dayan karaa la rabaa maanta hadii qadar oo aan iraahdo war qadar Iraaqo hay waa ku baahana marka ay tiraahdo waxa xaq u leeyahay inaan hore ka soo istaago
absolutely ما قرأت يعني وانا كاغد هذا وين اهيد وانا لكن إن ما أنت ترى هذا قدر وعنيه عبال عن صور وريق أنت عن كله وحصورتك كلامه قدروا عاوي وريق لا يرى الله وحنا لا ورنمايو مثلا الشعب إذا جارسي ذات كان إذا جارسي أنا قاعد إذا جارسيني شعبك الصوماليات لا يرى ذا حكتو مننا aad iyo aad baa u mahadsan قرأت كينا الله سعودها aad iyo aad u mahadsantahay Musa Ciraaqi waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo waxa jiro in ayaamahan dambe si qaldan social media totally loo isticmaalay waa jirtaa waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa dawladda oo fahantay wax badan oo u baahnayd in la qabto dawladda oo fahantay waan marka koowaad u mahadcelinayaa still wali inay wax dhiman yihiin dawladdu way shaqaynaysaa aad u weyn maxaan maanta dhalinyarada Soomaaliyeed kaga talin lahayd waxyaabahaas xun ee still ay u taagan yihiin inay sameeyaan maxaa ka oran lahayd maadaama aad tahay qof muddo badan oo soo jira meesha horta dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabo fiyus lagu raadiyaa jira waxyaabo qurux badana oo nidaam hadda barnaamijyada wadid barnaamij u baahan ma aha qofna ma ataagayso waa barnaamij iska nidaam oo qurux badan fiyuskaadana wixii Ilaahay ku siiyay markaas iska ku iimaan qabayso dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka waaninaa waxyaabaha fiyuska qaabta daran aad ku raadinaysan walaal iska dhaafa wax qurux badan aad samaysan kartaan qadar oo imaan kartaan al-Iraaqiyad oo imaan kartaan wixii wax toosan iska noqonayaan laakiin waxyaabaha qaldan ubadka kala kugu dayanaya berito yani gabaray adiguna caruurtaada berito hooyo bal fiiriya gabasaarkeeda horta tinta qadar oo aan waxaan bala yaabay tinta dambi ma ahmi ayada kale dambiga waliba qaybaha ugu xun Soomaa waa maxay Soomaalidan dhalinyaro gabdhaheena Soomaaliyeed waliba fanaaniinta koow bilaab wax walba horta maarat marka koowaad tinta heesay sameynay gabadhi okay madaxda samaysano macnaa gabasaarkii wixii la sameeyay shukadii wixii abalawi gasho heestaas ka soo qaad dib waa ku jirtaa ma laba ka dhiganay marka qadaro waxa waa sheekadan xagee ka soo bilaabata horta hal iga raali aad fanaaniinta waa odo fix loo dhaqaajinayo indhihi taagtaagaya hata marka waxa wax wanaagsan in raacdaan waxay ka fiican tahay malaha aad iyo aad waa bahsan aniga maanta qadar saaxiibkaya oo cusumana soo qabtay wax walba iga dhaco raali ahaaba aad iyo aad waxa way madaxan saaranaysa aad iyo aad waa mahadsan tahay waxaa tahay qof like turjuma filmada mid waa kan aan kugu baranay actornimada ma jira codad kale oo aad isleedahay way jiraan oo waliba filmada ku bandhigtay nin waxaa jiro Soomaalida inta badan ee tira fiction oo inta badan macnaha waa lagu yaqaanaa hadda ka hor JK iyo Faarax Agshay iyo Fuad ya film turjumayna iyo Yacqoob bas filimka aniga actorka ma lahayn Yacqoob walaha waxa lagu dhahnay Iraaq oo hee ma istaghfirullah filimkii aan fiirsado marka waxaan arkay nin iska fadhiyo askari oo dhihi taagay marka waxaan dhakaalay ninkan yaa u hadlo cid u hadlo Soomaali Iraaq uma hadlay ana u hadlayana markeena laakiin ninkan codkiisa inaan bedel qasab waay maxaa ku bedelay ana aqaan shibida waxaan isku jacburna shibida hay bilow ana dhaqaajinahay hada waxba meesha wareegahay arakata indhii buu taagay hoogay midba saari ma hayo salaanta tani odaygu waa ismaqiiqa macna ma fahantaa marka fiigsana la yiraahdaa odaygaas aan ku jeclaa wax film turjum oo aan turjumo af Soomaali hadii la dhaho atoorasha kaasan ka jeclaa maxaa yeelay warkiisa iyo waxa isku xigday hadalka aan u qoonday indhihi iyo bixina macna walin macnaha hadalkiisa isleeka iyo isku ekaa waa isku eegi asagna fiigsan yahay no macnaha marka fiigsan waa asagna qalqaloo yani magaca bixisay maxaa fiigsan u baxshi fiigsan asab fiigsan marka okay aad u maadsantahay waxaa jiro dad badan oo magaalada Muqdisho joogo oo la jimiin hatta waxaa jiray aan ka dhax galo hilmaam hadalku ma jiray ilmaha yarkana hatta waa jirtay oo yarka oo aan hadli jiray hatta xogaa aan geli jiray ani hooyo abi waxaa ani maalik istimiliyatina itayno ani hatta kala kan wala tagala fiiriya caadi waa filimka caadiga marka ayaga waa jiraan waa aad u maasanta dadni hal qof kaliya midii markaas waa in lagu Iraaq shan qof in lagu dhaw Iraaq shan qof Iraaq saddex qof qaar kood hataa leedo waa iska qaadanaa marka niyo waa kaaga mahad lagu ma yaqaan inta badan no laakiin waxa lagu yaqaan codkayga caadiga oo kana oo filimka markuu yahay camera markay tahay waa kala duwan tahay aad iyo aad way qofkan afkiisa taraacay afkiisa lagu turjumaa afkiisa maanta waa u qosle waa oyne wuxuu yahay ma fiirsan filimka ya waa lagu horkeena atooraha oo hadlay la adarka ninkaas wada tiriisha adigu waa jaamarka waxa laga rabaa intaas inaan ka soo baxay ooyin qosol murug wax walba inaan la timaado laga rabaa inta uu leeyahay inta laga rabaa waxa la isku qaato intaas waa okay kulay aan film wali ma turjumin baa umaleynaa laakiin hadda way kana lagu wadaa maxaa dhacay way kana isku dhibe waxa laga rabaa inaad tiro misiito
inaa soo shida laga rabo war aniga haddaa waxbaan turjumaano meeshaas waa lagu kala orday may dadka badan aan basaasaan dhahay meeshaas أنا ما فينا ترجمة ورني دولي يعكو يصاحب يالو أما لك الأرض يا جكس والله دين عريسته أما لك الأرض ما وترجمي okay waxaan rabnaa inaan mar labaad xuso maanta yaa ku haray dadkii like madaxweynta ahaa ama legendska ahaa ama dadkii maanta looga diin jiray social media maanta magaalada Muqdisho yaa ku haray والله هذا محمد جبا وابحي يعكو واجوغا قور دير اسغن واجوغا كاليا واجوغا انتي بدنا وجوغتا marka aniga hadda sanadkan wax kale uma imaanin Haye. social media dadka da'da yar uma imaanin أنا بكل هاي waxaan u imiday oo marti u ahay maanta magaalada Muqdisho aan u jooga dadkaas waaweyn ee laf dhabarta u ahaa social media qayb kasta u lahaa laf dhabarta u ahaa so maanta waxaa sharaf iyo karaamo ah shakhsiyaad kamid ah inay ila joogaan sababteedan adaa iska lahaa waa kaaga mahadcelin والله صاحب قدره أنا وحاش شرف فيه هرت يوتيوب كذا كحرنا وداونا هذا الرول موضوع إيه هذا الرول موضوع أنكوها على حقيقي وجهي واي انا هو لكن ما أنت مقالة مقدسة مضحنا يا نصار أنت absolutely وقام بهني ذا كنا دلني ردان وحكى الإسكاديك هذا السوشيال ميديا كسب بعد هذا لا يهي بقول جرنا وقول علينا soo maaha أنا كنا هاي aniga waxaan ha u baahanin أنا waxaan marti u ahay dadkaas muhiimka ah waaweyn sharafta leh karaamada leh baan aniga maanta magaalada Muqdisho marti إلهي هكو قيمة صاحب مع صار نو قيمة أنا جن وكو قيمة وكو كرتاجنا هاي شعب كنا مرقاتي كيهين أنا قدرت كنا لجنس كه من قارنا فوقوق وحلي هذا قف كل بنتي سنسينا aad iyo aad baa mahadsantahay waan ka qabaa waxa tahay nin hadalkiisa aad iyo aad loo jecel yahay هذا وين maxaad maanta fariin u reebi lahayd guud ahaan ummadda Soomaaliyeed isku xiran ولو أو ما أنت حوجا أنا فرفرنين أو حالك قاعد قاعد لسعتي ولا الكيو جودهان أمد الصوماليات وحنديه لها ولا ليال هرت مركب قوات قعمها لسقف صدق مركب لبعض وإن دولتنا الله شغينا مركز الدحات وإن أبد كأن كده ذلنا تكو وحن كسو تجاو حياته وهرين وإن الدين تيانو كحرنا ولا ليال مهمة داسو هرت مهمة دوام داس وإن نس آمني كرنا دلنيروي وإن دلنيروي دل كان هرتو ودل قروح بدن ودل نعف دحيالو وإن كديدين كرنا قروح ديسا يوحسوسار كيسا وإن كود ذلك كرنا وإن وحضر كساني موت إسكوتو وإسكري قروح تاجن نقول لي حنو قالت هو إسكري كان قروح ده أنا قلنا تاجن وإن لقيمي كرا وإن شرعي هرت مرك هر عن قيمي كرا سومالي نمبركو أدونك وحاول بدأنا وحياتها شرعي جبان كل ديرنا مهمة ده وحياتها شرعي وإن هرت وإن هرمون اللي قلنا سيد ولد كل اسمه هدي أنا شرعي الشعب كيسنو وهو كان سنان مهمة ده كوا ده مدة سلاليال يا قال اللي فهمين ولكن قدرنا ولجونا وقت والبنا ساسا أصو تاجنا دونا هدو إلى هراء سنة كان وجوا كفاية سننا أقول تيسا يوحوا وذا أنت بقى لكي كفاية سنة أنا جاه كي يصور راعينا هاي صور راعو أدي هذا ما صنتها أنا شرفي كرامي إيه هاي كل يوم ما هني ضدك أمثلي السبو وأتاجنا هاي هذا ساريهم برنامج كانوا حا برنامج كقصوين كي جعلك نمعها يبين فرينا كهجا وضع أيضا واو نمعها يبو حتى القدر وأصل صعدة أنا أصلا وأصينا نمعي عادنا وريس أنت وأسقى بنا يسندو إلى هيرة شرفي كرامه وماتك جيكينا سيدو كلا سجنا أحمد صادق يعقون وتعداي هركو بشيء أنا كل علومنا صعب فنيا واحد كلام فنيا أنا كمسؤول دوري برا أنا كمسؤول قدر دوري أصحاب هذا ما حوشيق لها صاحب بيال قدر شريف وانين كضي الشل والله بين ذي مشي قاعد وانين خيمين له وانين شرف له إله بقى كرامي يقفل بالبلاد وإله بالبلاد هو كرامي لكن قدر وانين قيمة له حقيقة صاحب بيال ماشان نجا قرحية هذا كدبنا هل كان أسوي ما هينا أما فيسبوك أما يوتيوب كي سبب إن شاء الله هدو إلهي را يا لو ما حسن تحي برنامج كانوا ها برنامج قصوين كي جعل كمان ترى وحام مرتين وجوها بالجميل تا سومالي dad aan ku tashano bamaantana martiin oo waxa inta muuqaalka Facebook rumeena aniga iyo asaga iyo dadka madaxweynta ah uu ii sheegay inaan sugayo waxa idin kaga tageynaa xagga farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay Salmaan برنامجك أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته